hay'adaha kala duwan ee dhinaca garsoorka ay gobolka saaxil xaruntooda magaalada Berbera wasaaka shir jiraad ku qabtay xarunta ay ku leeyihiin magaalada Berbera halkaasi oo ay wada degan yihiin gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo gudoomiyaha maxkamadda degmada Berbera iyo waliba garsoorayaal tiro badan ayaa saaka waxa ay cabasho ka muujiyeen in kaamboolka dhulka ay degan yihiin in mas'uuliyiinta gobolka saaxil ay dejinayaan ururo wadani ah halkaasi oo dhismayaal ka dhisan doonaan gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka saaxil Abdirashiid Duraan ayaa isagu saxaafadda u sheegay shirkaasi jirayd inay xayireen dhismahaasi la siinayay ururka dhalinyarada ee gobolka saaxil ee loo yaqaan Soyka laakiin waxa uu xusay in dhig loo dhigi waayay mas'uuliyiinta gobolkuna hawshooda ay iska sii wateen dhagax dhigna ay saaka u sameeyeen waxaana kamid ah hadaladii qaybaha kala duwan ee garsoorka ay gobolka saaxil mas'uuliyiintooda sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan doonayaa clipka yar xilligii hore ee ururka la siiyay dhulkii la siiyay iyo cidii siisay iyo xilliga ay ahayd iyo meesha ay ahayd inaan yar iftiimay إن شاء الله أنا نقول تحرّتني حرّنا اليوم توصل كردي وأنا هذه حبّنا بقولي أنا هذه لا هاي صوت ما وميل كردي هاي وميل تقول هاي ودم أنا على صوت وعيد كصوت بس وحول داري راها وندوكم sida ka aragtaan clipka waxa ka hadlaya barasaabkii hore ee fahmi sanadkuna wuxuu ahaa 2015 waxa la dhagax dhigay meel kamid ah shacabka magaalada Berbera dhagax dhiga hore iyo kan imanka waxa u dhaxeeya sanad iyo waxoogaa baan maleynaya sida ka muuqata clipka sababta halkii hore ee la dhagax dhigay looga soo raray ee maxkamadaha dhexdoodii loo keenay ayaa wax lala yaabaa ma diidanin in ururka la siiyo dhul mana diidanin in dhalinyarada meel loo dhiso oo madaxweynuhu siiyo oo gobolka kor loo qaado maamulkiisa iyo wanaagiisa laakiin dhul banaan oo shacabku leeyahay shacab dadku leeyahay aan maxkamad lahayn ama hay'ad dawladeed aan lahayn de hal la dejiyo waa la helayaa maxaa maxkamadaha dusha looga saaraya maxaa meeshii hore loo dhagax dhigay looga keenay dadka waxaan u bayaaminaynaa iyo xukuumadda iyo gudoomiyaha maxkamadda saraba in hore dhulkan loogu dhagax dhigay NGO-ga iyo ururka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق عدالة dhinaca dhisma waxaan eegaynay inay wax badan baa warqado badan baan ka soo qaadnay gudoomiyaha uu ku codsanayo in lagu qurxiyo oo lagu hagaajiyo gobolka maxkamadiisa waxa isu bedeshay in iyaga xaydaankoodii oo maamulkii gobolku uu weeraro oo la siiyo urur dhalinyaro ah NGO laga bixiyo cadaaladda gudaheedii iyada oo laga yaabo maamulka sare in loogu sheegay meel shacab ah area shacab loogu sheegay sidaa darteedna laga yaabo in qoraal iyo waxaan ka loo sameeyay anaga waxa loo sheegay in meeshii la dhagax dhigay wuxuu gudoomiyay sidaa uu sheegay uu gudbiyay xayiraad taliyaha qaybta loo geeyay amarkaas dhag jalaqba looma siin iyaga oo la isla dhan yahay ayaa waxa la dhigay dhagaxii laftiisii sidaa darteed waxaanu leenahay waxaan baaq dheer ku doorto waxa mushkilad baa in xukuumadda lafteedii ay kala shaqayso imika waa nasiib darro in iyaguna hadlaan annana aanu hadallo dhagax dhigaan annana aanu ka hadallo waa nasiib darro waxay ahayd in anaga noo yimaadaan in laga wada hadlo in wax la isla qaato in meesha ku habboon la geeyahay laakiin waxa taa bireeyey oo waxa loo haystaa maxkamadaha meel yaroo urur yaroo ka tirsan uun meelahaasuun oo xagga hoosaa laakiin garsoorku fulintuu la simay waliba ka baawar weyn madaxweynaha kii ansixinayay weey sidaa darteed waxaanu anagu gudoomiyaha maxkamadda sare iyo maamulka sare iyo madaxweyne oo dhulkan ka soo horjeeda laga saaray shalayto maalmo dhaweyto
dadkii ku jiray oo dhismihiisii aanu sugayno meelahaanu ku jirnaana waa meel yar oo aad u yar oo cidhiidhi ah waxaanu sugaynay in wax lagu soo kordhiyo laakiin ma eegaynin in annaga wax eegiina laga qaado oo maxkamadihii loo soo boob tago waxaanu leenahay arrintaa kama raalinihin cod dheer baanu ku hadlaynaa annagii maxkamadihii ah waxaanu leenahay arrintaasi waa arrin aananu ka dulqaadanayn maantana aanu qoraxdaa u taagannahay halkii aanu dadka cadaaladda ugu qaadi lahayn in la googoosto waxaanu raalli ka nahay ma jira maaha saasaanu guddoomiyaha garxifaankana ku raacsannahay siduu sheegay saasaan kusoo koobaya raxiim magacaygu waa xamse axmed cali hayste garsoore ka tirsan maxkamadda degmada berbera isla maraantaasi waxaa ceeb iyo lama arkaana oonu aada uga xunnahay arrinkaa dhulka ay maxkamaddu leedahay isla maraantaasina lagu wareejiyey dad aan ehel u ahayn amaba aan shaqo ku lahayn urur iyo waxay doonayaan ha ahaadaan maayarku kolley wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ballan qaaday inay garsoorka xilligii uu nala joogay guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiye aadan xaaji cali axmed inay